shucaac oo ka mid ah odayaasha deegaanku talo iyo baaq u diray dhammaan madaxda Soomaalida waxaana uu sheegay hadalkiisaasi in loo duway meel kale waa sida uu hadalka u dhigay arrintaas isaga oo ka hadlaya waxa hadaladiisa ka mid ahaa qofku inuu been sheegana waa mamnuuc waxa xeedho maran fandhaalqaca oo waxba ku jiro dhacaan la in lagu lugo-ana maaha dad badan baa ila soo hadlay hadalkan maalinka dhooti jeediyey dad badan baa igu guubaabiyey dad badan baa yidhi dowladda koonfureed baad afkambido waqooyi baad u afkambiday waqooyi baad u hiilisay xaqiiq ahaanta waxaa weeye uma hiilinay anuu Soomaali baan u hiilinay hadalkaas waxaanu idhi farmaajo maxaad saa u tiri farmaajo waa xaqiiqa haddaan la soo taagnahay waa maxbuus anuu farmaajo ma caayin laakiin waa nin maxbuus waxaa ilaalisay Yunusom 30 sanana meesha Yunusom baa fadhida nin dalkiisii ciidamo fara badan fadhiyaan oo mushaar dollar ku qaataan oo kiiloomitir aan socon karin asagoo ciidan wadankiisa wata waa maxbuus nin maxbuusuna wax allaale wuxuu qaban karaa ma jiro dal wax ma qaban karo sideedabana Soomaalidu runta way ka caarootaa ninkaad hadda reerkooda ammaanto wuu barari haddaad reerkiinu waxba ma hayno zero aha weligiina reerkiinu jaajuus buu ahaa Soomaaliyana waxba ma soo gelin cilmigiina iyo caqligiina min lagama faa'iidina wadalaaci maraan wax ka weydiin xaaladda deegaanka iyo isbedelkii dhawaan ka dhacay deegaanka ayaa uu ku jawaabay sida tan wallahi taa anigu ma arko ninba sidee u tahay sideedaba waxaa la hal in la tuuro hal la tooso in la tooso ma in la tuuro baa anigu ma arko dawladda Itoobiya sideedaba hal reer baa xukuumada xabashi leeyahay dadka inta kale waa la gumaystaa Oromo waa la gumaystaa Soomaali baa la gumaystaa Anfar Hereriin Dabuub Gambeel Sidaam kulli inta kale waxana adoon 200 sano la gumaysanayay kaniisadaha gumaysanayay reer Yurub baa uga dambeeyay Mareykan baa ka sii dambeeyay Yuhuuda dhaxda ka shubaysa waa wax caalamka oo dhan wada ogyahay waa dabranahay inta kale ninka dhaqdhaqaaqa qoomiyadaha kale xabashi ahayna waa la isugu tagi way qaadan karaan mustawaqa adaguna kama qaadan karaan kilada kale 120 milyan oo Itoobiyaanku markay ka qaato kilka shanaad xagaadaad u doonan doorasho xagaad ka heli asaga taada samulaata soo boorso ku soo bixi maayo annaga ma naloo ogolaado inaanu xabashi ka codayno ba tukada naloo ogolaado ma Oromo naloo ogolaado war dadkanu dad hurda wadanka idinkaale soo jeedsada adoo soo jeeda dhimo ha kala hor dhiman kolba xubin ha ka dhiman adoo soo jeeda nimanka waxa leeyahay soo fadhiya Soomaali kala qaybinaya ee hebel iyo hebela ina budla roor ari taabo isfooda kaga taal faayal ka tab way wada garanaya rag Allah hadlay iskaga imaadar sababa kala qaybinta reeraha ka daaye boorme ka jooga iyo ka aw barra jooga iyo ka feer jooga kala sharaad baynu nahay walaalaynu nahay haddana sabirta isagana waa leena curi barqo waa leenaga badan yahay waxaan ku leeyahay BB-na iska liqa xagga kore ka horeeyaan daruura waaweyn baa saaran xagga kore xagga inta roob ka daayo idinku iska liqa tababarka qaata musuuqiyaha qaata wixii la qaba liqa waxa uu sidoo kale Cali Shucaac ka hadlay kootada haweenka ama shaqada haweenka ee dibadda waxaana kamid ahaa hadaladiisii markii dawladda dhisay waxa weeye horta haweenka guryaha lagu celiyo dawladuna ha biisho ama agoon ha lahaato ama garoob ha ahaato ama nin qaba hal naag oo suuqa socota waa inaan la arag on talada gaalada laga hor yimaado afka lagu dhufto gabdhuhu waa in gurigooda joogan dhammaan gabdhaha oo dhan dawladda waa in biisho ninka gabadha gurigeeda markay ku noqoto hadday ka baxdo caruurtuna waa zero ayana waa zero haddii ay ku noqoto gurigana hooyo oo dhan ta durwaaga iyo ta libaaxa iyo ta maroodiga iyo ta dadka iyo ta daqsiga kulli hooyo ma wax koriso oo macallimadu ah todobada ciyaalka hooyada ku afarto todobada ku barta dhaqankooda todobada diinta ha barto guriga ku noqoto hooyadu waa sharciga islaamku soo qaban waa nooca meesha boqor ku dhigay koonka leh wax ka fiican geyn meysaan waa been haddii gabadh baa wasiir ka dhigi gabadh baa madaxweyne ka dhigi gabadh baa kan or waa been waa taqaaniin hal goynina caalamka dambiga weyn ka gelina caalamka gaala idin sheegtay gaala waa beenaale sheedaana waa beenaale adu ka soo qaad gabadh ka soo qaad waa madaxweyne haweenka way noqon markii loo dheel qaado mid baa ragga ba arki karin midna waxa way dhididkaaga si ursaniyo go'aaga ka soo qaad gabadhii madaxweyne inaad ka dhigtay inay tahay ragga baan arki karin wafti baa u yimid waana madaxweyne waana walac ilma caloosheeda galay madaxweynuhu afka dabasku leh oo dhuxul ruugaya oo mantaga wacda ku haya waftiga markuu yimaado ka hor keentay warba dambiga la galiyo umada baldhow madaxweyne 9 bilood oo fadhi kara xafiis war macquul ma waxan war gabdhaha gurigooda ku celiya waa kow macalinka caruurta wax baraya ee iskoolka dhigaya waa inuu 6 qol ku jiro dawladeed gaari dawladeedna wato 20 mushaarkiisu waa inuu ugu yaraado si uu ka tijaarku dhalay iyo ka madaxdu dhashay kaliya uu wax u barin
oo salabada u qashin macallin sanka taagay 25 kun oo mushaharana qaata daray fuulkuna u yaalo asagana caruud soo dhan ilaa heer jaamacada dawladdu qabto macallinkana laga bixiyo dhakhtarkiisa firiya waa inuu noqdo ninka boorisku waa noocaas kale guri dawlad ma daray fuulku u yaalo guri dawlad ku jiro waxa weeye 15 waa inuu yarato mushaharkiisa kulli uu xadlaha hadii kale asaga booris soo adii boorisku noqon maayo ka askariga kale waa nooca agaasimayaasha maareeyash waa nooca warninka haddaad tii 100 milyan maamul 3 kuna qaado maxay tahay waxa soo bisada inta hilibku agogaysaa tirma waan saacane hilibka waardiye hal cad kale ka cun wartadka tuugada habarina hal la siiyo ninka soo shaqaale dawladda waa inuu haysto warqad oo dhakhtarka bilaasha isaga caruurtiisa waa inuu haysto ilaa heer jaamacada in dawladdu ka bixiso caruurtiisa guri dawladeed ku jiro mushaar ku filan la siiyo ninka xeerlaaliyaha iyo ninka gudoomiyaha maxkamadda leeyahay ugu yaraan konton kun ay qaataan waa kuwa ugu yimaadaan la caalamka dhan haddii aad adigu aad siinay lacagta guri dawladeedna gelinin labadeena kiiskiiba wuxuu ka dhigan dukaan furan haajiga stupidkaana meel ka saaray ii dhib boodhan ka kalna wuu ka qaadi meeshii waa xafuufi xasan gal ninkii dhaca waa mandheer laba dukaan buu ka furan ugu dambeyntii waxa uu talooyin u soo jeediyay shacabka Soomaalida inta la murmayo ee hadda ka jijacni walba soo leeyahay waa dhibaatayntada leeg haddaan nidhaahno war wixii ummaddu way soo wada martay caalamka dhan baa soo maray hal gaari gacan oo ka qashinka lagu qaadaa yaa Mareykanka 10 kun oo qof ku dhimatay 10 kun oo qof sida ka baa waa gaari gacan ka qashinka ku daadino oo la daawisiyo filmad saleeqaan ummaddu jaahilnimada way soo martay kaariyoono kale oo Talyaani ah 12 kun baa ku dhimatay dadku inagoo wixii waa la dhigay meel baa la dhigay wixii fardaha aynu isku leeynay ee geele iyo gabadha iyo faraska colaadda ummadda way soo martay haddaan gabayaashii tirino oo isu xabaano oo reebel baan saanid annaga geela qaali jiray annaga ka fardaban wax dhacaan la weeye xeedho badan fandaalqac wax shacbigeena anfaca islaamnimadeena anfaca diinteena iyo dhaqankeena midna anfaca ma aan ilowna sida ummaddoona iscafina ceeb ma aha waxaan leenahay hal wixii daanta yaala daad ha qaado wixii daanta yaalana daad ha qaado Soomaaliya liq Cabdiraxmaan Axmed Warmaal telefishinka madaxa bannaan